tusaale haddaan kusoo qaato dowladdii hadda tagtay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ka ahay iyo madaxda hirshabeelle saaxiib bay ahayn dadka lagu xanto inuu aada ugu dhow yihiin ay ahayd waxaa ka mid ahay dadkaasi madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed intaas yar uu joogay lafta gareen horumaray gaartay waa la garanayaa oo kaga faa'iidaysteen saaxiibtinimadii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo marka laakiin hirshabeelle hal geed oy talaaleen lagama soo helayo dadka meesha joogaahi inay wada hadal ogolaadaan wixii lagu wada hadlana inay fuliyaan qofka muslimka waliba bini aadamka oo dhan laakiin qofka muslimka hadduu wax ballan qaado waa inuu ballantaas fuliyaa madaxweyne cali guudlaawe iyo ragga kale oo la shaqeeyo ma aysan fulinin ballanqaadyadii ay ka qaadeen ummadda reer hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan reer hiiraan laakiin duruufo ku xiriirina dhici karta duruuf ma jirto wax lagu heshiiyo oo siyaasadeed duruuftu waxyaabo badan ay noqon karaysaa amniyay noqon karaysaa dhaqaale la-aanay noqon karaysaa laakiin wada hadal siyaasadeed oo lagu heshiiyey ma noqon karaysaa duruuf inaa fulisid inaa kari weysid meel la qaada karaa hirshabeelle maba lahanba cad lagu cuno ma lahan laga qaato ma jiro tusaale haddaa kuusoo qaato 2016 doorasha ka dhacday jowhar waqtigii madaxweyne xasan sheekh oo doorashadii uu qabtay xildhibaanada ay soo dooranayeen 51 qofood waagaas xildhibaanada dadka u tartamay iyo kuwii la soo doortaba wadada jowhar ay soo mareen dhulka ku yimideen wadada balcad ay ku yimideen maanta adigu waa ka warqabtaa in qof bini aadan uusan meeshaasi oo siyaasi uusan mari karin oo nolol ku tegi karin marka 6 sano kadib in wadadii 6 sano ka hor si nabada lagu marayay aan lagu mari karin gargaar inta magaalada muqdisho laga qaado oo buulo burta la geeyo maxaas la geeyo ceelbuur la geeyo jira maanta taasi meesha kuma jirto markii waxyaabo badan oo aad ogtahay 99 xildhibaana ay maamul goboleedka hirshabeelle maamul goboleedka 99 xildhibaan ma qaadi karaya 80 iyo dhowr wasiir maalin dhow la soo magacaabay maamul goboleedka 80 iyo dhowr wasiir ma qaadi karaya waad aragtay hay'atay madaxweyne cali guudlaawe muddo laga hortaagnay inuu tago magaalada beledweyne gobolka hiiraan uu tagay heshiis ay wada galeen ummadda reer hiiraan iyo asiga heshiiskii kama uusan soo bixin